waxaan u dirayaa maantay kiiska galmudug waad furteen dalkii xukuumadda muddo dhaafka waa la furay inta la balaqay in looga tagaana waxay dhalanaysaa waxa shalay iyo maanta dhacay waayeel baa la laayay dadna waa la beriyay waxaan sugaynaa waa in inta afafka la soo duubto biskoolada la qaato masaajidada dadka loo istaago waxaan sugaynaa in baabuurta bumbooyin inta looga xiro dadka la qarxiyo waxaas oo dhan firaaqa dastuuriga ah keenaya in qowlaysato kasta ahi amni darrada darteed ay ka faa'iideysato waxaan leenahay galka waa furteen degdeg naga boobsi guddiga doorashada soo dira madaxweyne ku-xigeenka warqadda xilgaarsiinta u soo dhiiba shaqaduna degdeg ha u bilaabato iyaysan la iideysan oo waxyaabahan amni darrada ka shaqaynaya iyo mu'amaraadkan abaabulan hasiinina waqti ay ummadda ku dhibaan idinkana xalka idinkaga fogeeyaan intaasaan u diraya axmed cabdi kaariye waa buuq siyaasadeed iyo hal la arko iyo buuq isku qarin waxa uu hadda wadaahe isna wuu ogyahay inuusan dagaalami karin awood ugu babac dhigo ciidamada qaranka ee loo dhan yahayna isaguna ma lahan garashadeedna kama suurtoodaysa kamana sugayno laakiin waa ismuujin iyo gorgortan uu ku jiro oo uu leeyahay waad soo shaqaysay waxa lagu yiraahday maaha nin u dhex dirari kara deegaanada galmudug nin ku dhex dirari kara awoodeedana leh maaha dowladda galmudug waayahanba waxaa ka taagnaa xaalad cakifnaan siyaasadeed iyo khilaaf dhaliyey muddo dhaafka xukuumadda gelinaysay waqtigii doorashada la gaaray iyo jadwal ay dowladda federaalka Soomaaliya guddigeeda doorashadu soo saareen arrimahaas ayaa hadda caqabadooda ugu weyn taaganta deegaanada galmudug dhaqdhaqaaqyo ciidan ka socday saacadihii ugu dambeeyay wararku waxa ay tilmaamayaan in madaxweynaha galmudug uu isku diyaarinayo dagaal uu dowladda la galo bal arinta maxaan ka ognahay wasiir waa maasantahay madaxweyne axmed cabdi kaariye oo soo shaqeeyay 7 sano galmudug hortaagnaa wixii uu reer galmudug u beerayna iyaguna waa ogyihiin isaguna waa ogyahay maantayna ma qabto inuu meel maxfal la soo istaago waa dagaalamaya dowladda federaalka ana ka hor imaanaya galmudug ma aan dowlad madax bannaan oo gaar u taagan waa state kamid ah xubinna ka dowladnimada federaalka ee Soomaaliya waxayna ku daawan tahay amarka iyo xukuumadda mar walba xukuumadda dhexe federaalka ka soo baxo waayo axmed cabdi kaariye waa buuq siyaasadeed iyo hal la arko iyo buuq isku qarin waxa uu hadda wadaahe isna wuu ogyahay inuusan dagaalami karin awood ugu babac dhigo ciidamada qaranka ee loo dhan yahayna isaguna ma lahan garashadeedna kama suurtoodaysa kamana sugayno laakiin waa ismuujin iyo gorgortan uu ku jiro oo uu leeyahay waad soo shaqaysay waxa lagu yiraahday maaha nin u dhex dirari kara deegaanada galmudug nin ku dhex dirari kara awoodeedana leh maaha 7 sano ayuu joogaa galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor filla Soomaaliya sidaan ognahay duulaan ka dhana ayay diyaarinaysaa bal duulaanka ma kula muuqdaa mid uu axmed cabdi kaariye qoorqoor isku sii adkeen gara galmudug mise waxaad leedahay waa uu ka bixi doonaa axmed cabdi kaariye hadii xukuumadda federaalka uu iska dhaaf inay duulaan ku qaaday ay maanta soo saarto warqad sharciyad ah oo madaxweynaha xilgaarsiinta ah ay ku siinayso madaxweyne ku-xigeenkiisii Cali Daahir Ciid hal daqiiqo kuma sii jiri karo filada galmudugna beelad tiro badan oo hubeysan baa wada jooga waa dad lagu ilaalinayo la dhoodhoobayo oo maalinba meeshii fakata la soo celiyay leeyahay inay midoobaan oo wada qaybsadaan oo dowladnimo yeeshaan loo diyaarinayo nin maanta nin kaligiisu uu wax ku qabsan kara ama wuxuu ka dhex sheegan kara maan dad is awood leh oo reer walba hubeysan yahay waaye axmedna muu sugayo dowladda federaalkana weli talaabo uma qaadin labana dareerin xaasha lillahi mana u malaynayo in xabadu ka dhacaysa galmudug oo isaga maalin iska dhaafay saacad gudaheed xataa uu ku dhex dagaalamayo uma malaynayo intii ay dowladda ugu soo jeesanayso mas'uuliyadda hadda ka dhamaatay oo uu hayana ayadoo xilgaarsiina madaxweyne ku-xigeenkii loo wareejinayo kaliya anagu sugaynaa waana filaynaa maalmaha soo socda in isbedelkaas uu dhaco kadibna madaxweyne ku-xigeenka iyo guddigii doorashadu ay sii ambaqaadaan hanaankii doorashada loo baahnaa nin ku dhex dirari karo galmudug maaha sida inagu maqaalada ah madaxweynaha ku-xigeenkiisa golaha wasiirada iyo sidoo kaleeto golaha wakiilada wax wada shaqeynaa kama dhaxeyn muddooyinkii ugu dambeeyay bal arinta maxaa loo sababay karaa yaasa eeda dusha saaranaya waa maasantii saaxiibow axmed cabdi kaariye cidda ugu horeysay oo uu khilaafay uuna la shaqeyn waayo horta madaxweyne ku-xigeenkiisii xukuumadda qayb kamid ah golaha sharci dejinta qayb kamid ah garsoorka iyo ciidamada amniga badankooduba hadda waxay la shaqeynayaan madaxweyne ku-xigeenka galmudug Cali Daahir Ciid bay la shaqeynayaan in yar oo walaalaha naga laakiin
laakiin aan weli baraarugin oo u qaba Axmed Cabdi Kaariye waagii uu talinayo weli inuu talinayo shaatigiisa iska daawanaya hadda asaga gacantiisa ku jira walow laftirkooda hadda cid muuqato shafka u garaacayso waa dareerayna waa dagaalamayna aan la arag marka Axmed Cabdi maanta cid gacanta ugu jirta isaga ma jirto walaalo sidee marka xal lagu gaari karaa khilaafaadka jirana lagu xalin karaa Galmudug oo nabdoonna uu kaga tagi karaa Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor Axmed Cabdi Kaariye waqtigiisii waa dhamaaday hadda wax walba hala oo lala galaana ma jirto anagana nooma muuqato kaliya qowlka u furan waxa waaye Axmed uu isaga tag waxa aad ku joogtay oo aad Galmudug Dhuusamareeb madaxweyne uga ahayd waa sharci iyo ogolaansho reer Galmudug isla ogol yihiin waana ka dhamaatay umada dhaxana inta warqadii xilgaarsiinta madaxweyne ku-xigeenka siyaasada shaqada hal qabto gudiga doorashada ka maqan shaqadooda si guud galaan hanaankii dawliga ee loo talagalay sidiisa ku sii socdo intaas kaliya lagu gaari karaa Axmed maanta wax laga hadlayo waa 90 jir naftu ay taagan tahay kalxamaha raayo waaye kala ilaa balaqati qila marad wadana meeshii ilaahay quraankiisa ku yiri noocaas oo kale hadii laga hadlo maxaa jeclaan la yiraahdo wuxuu jecel yahay inuu yiraahdo caruurnimada la isoo bilaabo 90 kala la iigu daro marka Axmed warkiisu qabad male meel xabaal waaye iska galgalanayo warfanaya xukuumadda dhaxaa iska jeclaanaysa in intii laga fogaan karo buuqita laga fogaado maalin iyo laba cimri dheer siyaasadeed inta lagu siiyo Axmed maalinta u dambeysay iska bax la yiraahdeen uma malaynayo maanta wada hadal hadda looga fadhiyo Qoorqoor iyo walaal waa ku barayna Galmudug isaga tagayn isagana laga rabo xukuumadana looga fadhiyo mid uma malaynayo galka Galmudug maxaa uu ku soo dhamaan karaa markii loo eego arrimaha siyaasadda ee dawladda dhexe iyo sidoo kale maamulka khilaafkan hadda taagan hadduu sidiisa ku sii socdo amnigu horta halis ku galaya waxa jira mu'amaraad tiro badan oo la baleegayo oo xukuumadda waqtigeedu dhamaaday aan ognahay inay ayadu horanayso oo ay ugu dambeeyeen oday 90 jir ah oo xalay salaadii cishaha isaga oo adimayo gurigiisana dhex taagan la dilay isla ragaas dilkaasi fuliyana intay haddana soo safreen habeenimo gaari kale oo laba degmo dhexdooda marayeen intay jidka u galeen nin kale ku dhaawacay waxaan saaka arkaynaa falal argagax loo Galmudug aysan waayahan ku jirinin oo caasimadii dhexdeedii xaafadda waxa dhacday degmada Dhuusamareeb in qola aan la garanaynin intay nin saaki muwaadin ku dhigayeen isaga tageen falalkaas oo dhanna luuqadii waxaana loo soo waariday lagu yaqaanay nabadiidka oo ahayd qof baa la dilay waxaana dilay dabley aan heybtooda la garanay Galmudug qabiilada yaqaanada deganaada yaqaanada isdili jiray laakiin maalmahan u dambeeyo waxaan ugu soo cusboonaaday hebel waa la dilay cidkii dilina mantiq lama yaqaano waxyaabahaas markaa waxay sii horinayaan in dad badan oo qowleysata oo noocyadaas ay ka sii faa'iideystaan falalka noocaas oo kala in shaqada dastuuriga meesha laga saaray degdeg Axmed Cabdi Kaariye inta uu joogtaana meesha looga saaro xukuumadda xilgaarsiintaana madaxda federaalku ay soo fasaxaan si amnigii kala dambeyntii deegaanka dib loogu soo celiyo inta badan siyaasiyiinta Galmudug iyo sidoo kale hogaamiyaha maamulkaas Qoorqoor waxaa lagu eedeeyaa inay qayb ka yihiin dagaal beeleedyada iyo shaqaqooyinka ceenkani oo kala ah bal maxaa sababaya in dad muddo dheer isla deganaa walaalo ahaa ay isdilaan mar walba dagaalamaan haddana aan la kala dhaxgelin walaal horta dadku isma dilaan dadka waa la isku diraa Axmed Cabdi Kaariye intuu san deegaanka imaanin dhamaan dibadda Galmudug waa isku furnaayeen tusaale wadada isku xirta Balambal iyo Gurceel waa si habeen imaanin baa lagu safray wadada isku xirta Balambal iyo Xeraala furnayd midda isku xirta Caawdaq iyo Xeraala furnayd midda isku xirta Cadaade iyo Caawdaq waa furnayd midda isku xirta Dhabbad iyo Galsoor baa furnayd dhamaantood waxay xirmeen sanadkii ugu horeeyay Axmed Cabdi Kaariye uu hogaanka Galmudug qabtay xirmeen dabcan waana waxa uu isagu raali ka yahay duusan raali ka ahayn ciidamadii amnigu isagu hoos tagay iyo isaguba inta isha laga ma daawadeen go'doonka noocaas ah Galmudug iyadoo aan waqooyigeeda iyo bartamaheedu aysan ka jirinin urur argagixisho iyo haddana diyaarada la isaga safraa labada magaalo Galmudug oo rabeen isku raaca diyaarad la isku raaca fashilka iyo falxumada intaas la eegna waxa gaarsiiyay hogaanka waqtigiisu dhamaaday wax walba isagu keligii isku koobay raba shaqadii ugu sareysay Galmudug inuu qabto shaqadii ugu hooseysana inuu qabto isaga isku madaxweyna isaga isku taliyeedana isaga isku afhayana isaga isku qasnajiya isaga isku wax walba isaga isku fanaana mana hanaan dictator oo isaga oo kala in bulsho soo kabanaysa Galmudug meelaha ugu xasaasisan ee deegaanada Soomaalida ka mid tahay meelaha ugu adag ay ahayd in qof adag oo dadkaasi 10 sano 20 sano dib u dhis iyo wacyi gelin ay u baahan yihiin
xaqiiqatan meeshii uu ugu yimid 2020kii meel ka fog bay maanta joogtaa Axmed oo uga daray baan oran karnaa maahna marna uguma uusan wanaajin oo ku fashilmay hogaankii loogu dhiibtay galmudug wasiir sida aad tilmaamtay amni darrada maamulkii ayaaba qayb ka ah sidee marka shacabka ay u helayaan amni haddii maamulkii amniga loo wakiishay oo isaguba qayb ka yahay amni darradii oo dad uu garab ku siinayo inay falal kala duwan geystaan walaal shacabku hadda iskuma gudbaan su'aashaas waxay ku banaaneed marka isku gudub iyo isdhexgal bulsho iyo ganacsi leeyahay magaalada go'doon isku ah kaligeeda socota magaalo u talaabtaan marka magaalo walba reerkii deegaanada beesha deegaanada baa isku shacabaho isku ganacsi oo isku socod iyo isku dawladeed samaysatay cid u talaawada ma haddii xukuumaddu raalli ka ahayna degmo kasta waxa uu jooga dawladda hoose iyo maayar iyo xildhibaano iyo saraakiil baa u jooga iyada maamusho iyada hoos tagaan iyaga awoodii fulinta iyo amnigu gacanteeda ku jiraan awoodii kartay inay isku furto maalin kama shaqaynin in dadkaas walaalaha la isku keeno la nabdeeyo oo waliba gogol xalaal iyo nabad dhab ah la dhexdhiga maalin kama shaqaynin marka laga reebo proposal iyo mashruuc yar oo nabadeed oo inta dhaqaale lagu qaato 10 maalmood meel dhayl inta lagu wada cuno leeyahay boor inta loo soo wareeyay hibil baa heshiiyay oo isla dhuusama reeb galabkii ka baxanayo oo sii socday isla kuwii ay islaayaan oo odayaashii dhex loo galo oo la laayo marka waxaan iska dabuuray ahayn madaxweynaha cabdikaariye markuu galmudug yimid dadkoo dhan wuxuu yiri qof walba siintiisa ha raadiyo marka neefsiintaada raadi la yiri uu arkaa laakiin ma qaban karo 7 sano dadka reegal siintood raadinayaan iska dabuuriyaan dadku sida nagu maqaalada ah way u diyaarsan yihiin inay wada hadlaan laakiin ilaa iyo hadda waxa ay heli laayeen cid si dhab ah u wada heshiisa wada hadallo ugu furta markay tahay cidda doorka qaadan karta maanta horta bulshada rayidka qaybaheeda kala duwan dad nabad jecel waaye dad badan oo islaax baynu naas ka shaqeeyo oo galmudug ah oo gobolo badan dhiga yaa jira laakiin awoodda fulineed iyo maaliyadeed ay lahaan karaan iska liita bulsho isku tagtay waxa fulin kara hanaan dawli ah oo sharciyadii iyo xasaanadii iyo lagasigii amni ee lagu howlgeli lahaa ayaa fulin kara waana filaynaa xukuumadda xigta إن شاء الله تعالى إنه هوش سحوق سارته ذكر رجال مدو وحي وباهين شنطة سنة صوصة شنطة كحكي شنطة كسي حكتها إنه قديس الله سمايو وعيدين أمن الله سمايو دبوشيسين الله سمايو إذا حقل بلش الله أبورو شارع ده يهرمرين تدول النمذج ديجانا الله سمو وحي وباهين مدحوينك اليوم وباهانه بس تر يفيلسوف سيكولوجيكال وداوي رجال مدو وباهين ugu dambeyntii fariinta aad u dirayso madaxda galmudug iyo sidoo kale shacabka deegaanadaas iyo madaxda dawladda dhex maxay tahay wasiir waa ma santahay shacabka reer galmudug waxaan leenahay shacab dulqaad badan oo samir badan oo karti iyo dadnimo leh baatiin oo soo samirteen dulqaata maalmaha dhiman rajiimka waqtigiisa dhamaaday oo ka tagayana nala samra Axmed iyo tiimkiisa waa ka baxayaan galmudug xukuumad caadil oo tan dhantaana la keenaya dawladda dhexana waxaan u dirayaa maanta kiiska galmudug waa furteen galkii xukuumadda mudadaafka waa la furay inta la balaqay in looga tagaana waxay dhalinaysaa waxa shalay iyo maanta dhacay waayeel baa la laayay dadna waa la bariyay waxaan sugaynaa waa in inta afafka la soo duubto biskoolada la qaato masaajidada dadka loo istaago waxaan sugaynaa in baabuurta bombooyin inta looga xiro dadka la qarxiyo waxaas oo dhan firaaqa dastuuriga ah keenaya in qowleysata kasta ahi amni darrada darteed ay ka faa'iideysato waxaan leenahay galka waa furteen degdeg naga boobsi guddiga doorashada soo dira madaxweyne ku-xigeenka warqadda reer gaarsiinta u soo dhiiba shaqaduna degdeg ha u bilaabato iyaysan la iideysan oo waxyaabaha amni darrada ka shaqeynaya iyo mu'amaraadkan abaabulan hasiinina waqti ummadda ku dhibaan idinkana xalka idinkaga fogeeyaan intaasaan u diraya aad iyo aad ayaad u mahadsantahay wasiir Keese Cabdi Jaamac.